Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa taxanaheennii booqashada wadamada caalamka, haatana Algeria, wadanka ugu weyn baaxad ahaan Afrika. Aynu ku bilaabnay calanka Algeria wuxuu ka kooban yahay midabada cadaanka, cagaarka. Cadaanku wuxuu u taagan yahay nabadda dhulka Algeria, halka cagaarku u taagan yahay diinta Islaamka. Sidoo kale bisha calanka Algeria ka dhex muuqata waxay u taagan tahay diinta Islaamka. Algeria waxay dhacdaa qaaradda Afrika, waxaana si rasmi ah loogu yeeraa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga dadka Algeria. Tani markii ay kala go'een labada Suudaan sanadkii 2011. Algeria waa dalka ugu weyn baaxad ahaan Afrika, iyo sidoo kale dalka tobnaad ee ugu weyn adduunka. Algeria waxay dhacdaa gobolka Maghrib ee waqooyiga Afrika, waxayna xuduud la leedahay Morocco, Saxaraha Galbeed, Mauritania, Mali, Niger, Liibiya iyo Tunisia. Algeria waxay ku fadhidaa badgaaraya ku dhowaad 2,400,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran. Marka la barbar dhigo, waxay 4 jeer ka weyn tahay Faransiiska, waxayna dadku badankood ku nool yihiin magaalooyinka xeebaha Algeria. Waxaa ku nool dad gaaraya Algeria 44 milyan oo ruux. Qiyaastii 90% reer Algeria waxay ku nool yihiin waqooyiga aagga xeebaha badda dhexe. Luqadaha rasmiga ah waa Carabi, Faransiiska iyo Tamaziiqa waa luqadaha looga hadlo Algeria. Luqadda Berberka ayaa sidoo kale dastuuriyan loo aqoonsaday inay tahay luqad qaran. Caasimadda iyo magaalada ugu weyn Algeria waa Jazaa'ir, oo dhacda waqooyiga fog ee Algeria, gaar ahaan badda Mediterranean-ka. Sidoo kale magaca magaaladan waa kan loogu magac daray wadanka Algeria amase Jazaa'ir. Algeria waxaa dhaca saxaraha ugu ballaaran Afrika iyo kan saddexaad ee ugu weyn caalamka, taasoo reer Algeria ka dhigtay inay degaan waqooyiga badda dhexe oo ah goob aan ahayn saxare. Sidaad ka arkaysa maapka dhulka Algeria, qaybaha koonfurta waxaa ku muuqanaya oo keliya ciidda fidsan ee saxaraha, halka waqooyiga aad ka arki karto cagaarka iyo doogga. Sidoo kale waqooyiga Algeria wuxuu ka duwan yahay cimilo ahaan koonfurta oo ah saxaraha Algeria, taasoo laga yaabo inuu roobab ku di'in sanado xiriir ah, halka waqooyiga uu leeyahay cimilo qabow iyo roobab badan. Algeria waxaa xukumi jiray boqortooyooyin kala dambeeyay, waxaana ugu horreeyay boqortooyadii Roomaanka, kadibna waxaa xigay qabsashadii Muslimiinta oo ku beegnayd qarnigii 8aad. Kadibna waxaa xogay maamulkii khilaafadii Umayyadeed ee dhulka Algeria. Sanadkii 1518 waxaa gaaray Algeria khilaafadii Cusmaaniyiinta, waxayna ahayd xukunkii khilaafay ugu dambeeyay dhulka Algeria. Kadib hoos u dhici ku yimid xukunkii Turkida ee Cusmaaniyiinta, waxaa xigay gumaysigii Faransiiska. Faransiiska wuxuu Algeria qabsaday 1830, wuxuuna ka geystay Algeria dilwadareedkii ugu xumaa abid ee soo mara dhulka Algeria, heer loogu yaray 1 milyan oo shahiid. Wuxuuna Faransiiska Algeria ku dilay dad gaaraya 1 milyan oo ruux, kuwaas oo diidanaa gumaysiga Faransiiska. Faransiisku wuxuu saxaraha Algeria ku tijaabiyay hubka nukliyeerka, taasoo ilaa haatan dhibaatadaas ay ka muuqato dhulka Algeria. 1954 ilaa 1962 waxaa socday dhaqdhaqaaqyadii gobonimo doonka Algeria, waxaana bilowday xaajood kuwaasoo soo afjaray khilaafkii, waxayna horseedeen madax-bannaanida Algeria. Kadib markuu ka baxay xukunkii Faransiiska, badiba reer Yurub iyo gumaystii Faransiiska ayaa dalka ka baxay, inkastoo saamaynta luqadda Faransiiska iyo dhaqanka Algeria ay ahayd mid xooggan. Maadaama gumaysigu Faransiisku isticmaalayay nidaamka doorinta, wuxuuna beddelay afka iyo dhaqanka Algeria. Haatan qaybo ka mid ah Algeria waxay ku hadlaan afka Faransiiska. Madaxweynihii ugu horreeyay Algeria wuxuu ahaa Ahmed Ben Bella, kaasoo afgembi looga tuuray xilka. Horumarinta saliidda iyo gaaska iyo macdanta ee gudaha Algeria waxay keentay hanti cusub waddanka, waxayna dhalisay koror dhexdhexaad ah oo heerka nolosha ah. Bilowgii qarnigii 21aad, dhaqaalaha Algeria wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu weyn Afrika,